wiil yar oo Soomaali ah oo muddo ku noolaa kaniisad ku taala Kampala maanta waxa loo soo wareejiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda. Iglan Sahal Ali ayaa warkan Kampala inooga soo dirtay. jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ayaa ku guuleysatay inay la soo wareegto wiil yar oo Soomaaliya. wiilkan yar oo lagu magacaabo Cali Xuseen Cabdullaahi oo muddo ku noolaa kaniisad ku taala magaalada Kampala ee xarunta dalkan Uganda. Cali oo 9 sano jira waxa iskuul ku yaala Kampala geeyay aabihii Xuseen hase ahaatee dib looma arag muddo dheer taasoo sababtay in maamulka iskuulku ku wareejiyo booliska dalkan Uganda. sida uu dhigay sharciga daryeelka carruurta waxa boolisku ku wareejiyeen hay'ad qaabilsan xanaaneynta carruurta kadib markii ay maxkamad ku taala dalkan Uganda xukuntay arrintaasi. hay'adda lagu wareejiyay Cali ayaa geysay kiniisad. wiilka yar ee aan la kulmay ayaa ahaa mid aan garanayn luqadda afka Soomaaliga una muuqday in maskaxdiisa lagu shubay diinta Masiixiga. si kastaba ha ahaatee wiilkan yar waxa la soo wareegay guddida jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda. Cali Xuseen Cabdullaahi iyo kuwa kale oo gacanta ka maaratay kaniisadaha ku maqan. marka ilaahay mahadaas ka bacdi waxa aniga maaratay caloolxumo ugu reebtay wiilkan yar markuu yiri kaniisad meelaan ku taal oo loo sheegay inuusan weligiis muslimiin taasa marka caloolxumo ugu reebtay oo Soomaali oo mataqaanaa yani abkii oo kana wadanka Uganda ka bacdina oo school boardina oo geeyay wiilkan waxa la yiraahdaa magaciisa Cali Xuseen Cabdullaahi 2012 ayaa aabihii keena wadankan sida meesha ku cad school oo nursery boardina oo kajansi xaafad yiraahdo intee barood ku taala ayuu geeyay boarding ka geeyay halkaas. aabihii waa taqaanaa iskuulku waa town ayaa lacagta loo bixiyaa. taamkii marka uu dhamaaday oo wiilkiina meesha uu ka soo kaxaysan waayay meeshay ku hayeen kadibna waxay ku wareejiyeen markii waqtigii la gaaray kulli iskuulka dib loo bilaabo lahay ay booliska ku wareejiyeen. booliskii wuxuu ku wareejiyay markay bariyahayeen iyaguna waxay maartay kaniisadaha wadanka kaniisad kamid ah ayay ku wareejiyeen kaniisadii waqti dheer ay uu maartay ku soo gaaray. Cali Xuseen wuxuu ahaa waxa wadanka keenay aabihiisa markay ahayd taariikhda 21 bishii December 2012 wuxuuna watay passport sida ka muuqata wadan passportka wuxuuna soo qaatay visa ah 30 casho ayaa loo ogolaaday wadanka inay soo galaan. kadib wuxuu geeyay iskuul oo ah boarding oo lagu magacaabo Kingsway ayuu geeyay. xilligii lacagta uu dhiibay mar allaala markay dhamaatay iskuulkii wuxuu ku wareejiyay booliska Kasanja oo ah xilligaasita numberka oo ahaa iskuulkiina wuxuu ahaa SD 5259. kadibna waxay ku wareejiyeen maxkamadda ayay geeyeen. maxkamaddana waxay sharciyan ay u soo martay hay'adda maxkamadda ayay geeyeen sida ka muuqata koobiga maxkamadda tan booliska iyo kaniisadda lagu wareejiyay. arrintaas markaan ka war helnay waxaan galnay dadaal dheeraad ah annagoo u wada dhan Soomaalida reer Uganda hadaan nahay. ilaah mahadi waxaan ku guuleysanay in gacantayna la soo geliyo guuleysanay Cali Xuseen Cabdullaahi oo 7 jir ah xilligaas haddana nin 9 jir ah. marka waxaan u baahanahay hadduu nool yahay aabihiisa iyo haddii uu dad yaqaan ay jiraan ahalkiisa wiilkana waa wiilka hadda aad arkaysiin. annaga ayaa gacanta hadda wiilka ku hayno jaaliyadda Soomaalida ayaa gacanta hadda ku hayso cid allaale cidii taqaano wiilka in annaga ay nala soo xiriiraan gaar ahaan hadda idaacadaha ayaan hadda aan tusanay waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano arrintaas. waxaan u mahadcelinaynaa idaacadaha. dhanka kale wuxuu sheegay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalkan Uganda Xuseen Garweyne inuu daba socdo dacwad uu ku doonayo inuu kula soo wareego inan yaroo Soomaaliyeed oo lagu xanaaneeyo kiniisad ku taala magaaladani Kampala. sidoo kale waxaa jirta gabar kale oo hadda gacanta kaniisadda ku jirto. gabadhaasaytana waxay ahayd hadda sanadkii labaad ee waxa gacanta ku hayo kaniisadda wadanka. haddana si waxa nasiib darro ah gabadhaas si sharci darro ah waxa loogu iibiyay nin cadaan ah
kaniisadii ayadoo ogeenin oo staafkii hoos laakiin hadda alxamdulillah arrinta meel fiican ay maraysaa waxaana suurtagal ah 2 toddobaad oo soo socda in gabadhaasi gacanta inay ku soo noqoto jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ayaa muujiyay dareen ku aadan siday uga xun yihiin in caruur Soomaaliyeed la geeyo xarumaha kaniisadaha taasoo lala xidhiidhiyo inay ka timi burburkii dhibaatadii dawlad la'aaneed ee ka taagnay dalka Soomaaliya inkastoo hadda laga baxay dawladii ku meel gaarka ahayd